Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada warka Samareeb TV. Qodobada warka Samareeb TV ugu doorkoranaya waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka oo xaqiijisay in 60 qof oo cusub ay ka bogsadeen fayraska corona. Wasaar Roble oo xalay kulan casho iyo iswaraysi ah u sameeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Booliiska Soomaaliya oo ka hadlay dhacdo shalay ka dhacday degmada Yaaqshiid kadib markii gabar lagu toogtay iyo weliba 12 maalmood oo dagaal qaraar kadib Yahuudda waxa ay ogolaatay xabad joojin. daawada haddana cusubtaan ugu soo biir subscribe saar gambalka nafur si aad u dhigid wararkii ugu dambeeyay halkaan soo dhigno. waa maalinimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 21 May 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan. madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ayaa ka laabtay qalbadiisii ahaa ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo dhawaan loo magacaabay kadib markii dowladda federaalka ay ka hortimid magacaabistiisa su'aalna ka keentay dhexdhexaadnimadiisa. waxaa muuqanaysa in Mahama uu garowsaday diidmada dowladda Soomaaliya, waxaana markii hore qorshuhu ahaa in mar kale midowga Afrika ay arrintaas ka hadlaan. xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ayaa feejignaan sare kaga jirta shakhsiyaadka ay macquul tahay in xiriir ay la leeyihiin dalalka ay ishayaan. dowladda Kenya ayaa si weyn u baadigoobaysa in ay hesho sirta iyo hadallada muhiimka ah ee ay isdhaafsanayaan madaxda ee haatan ka talinaya Soomaaliya. Kenya waxaa loolan badan u gashay in Soomaaliya ay saarto cadaadis diblomaasiyadeed, laakiin weli waxa ay la rafanaysaa ceebta iyo niyadjabka imid sida ay ula dagaalantay Soomaaliya oo 30 sano burbur ah ku jirta. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil Isgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kulan casho iyo iswaraysi ah u sameeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. xubnahan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo gaaray saacadihii la soo dhaafay, waxaana weli imaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Puntland. kulanka cashada ahaa ee ra'iisul wasaaruhu u sameeyay madaxdan ayaa imaanaya xilli iyadoo la filayo in uu Muqdisho si rasmi ah uga furmo shirka golaha wadatashiga qaran ee xalka looga raadinayo khilaafka doorashooyinka. kulankan ayaa xalay ka dhacay hoteelka Diikale ee u dhow garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, maadaama uu xalan la degay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. sidoo kale waxaa la filayaa in ay maanta Muqdisho gaaraan madaxweynayaasha Puntland iyo Hirshabelle oo haatan ka maqan deegaanadooda. maalinka Sabtida ee 22 bishan ayaa lagu wadaa in shirka uu ka furmo teendhada Afasiyoni ee Hayndaabka Xanale, maadaama ay maanta tahay Jimco islamarkaana aysan weli Muqdisho soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Hirshabelle. Khamiistii shalay 20 May ayay ballantu ahayd in shirkaasi uu ka furmo magaalada Muqdisho, balse xukuumadda ayaa sheegtay in dib u dhacan uu ku yimid arrimo farsamo. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Gaza ayaa sii socda weli, inkastoo ay sii xoogaysanayso rajada laga qabo xabad joojin. labada dhinac ayaa muddo 12 maalmood ah iswadaarsanaya duqaymo iyo gantaalo khasaare geystay dhan walba, inkastoo ay badan yihiin dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada lala beegsaday Gaza. marka isbarbardhig guud la sameeyo, Israa'iil iyo Xamaas waxay haystaan hub iyo awood military oo aan isu qalmin. senatarka Mareykanka ee lagu magacaabo Bernie Sanders ayaa isu diyaarinaya in uu aqalka sare hor keeno hindis sharciyeed Israa'iil ka hor istaagaya hub ay Mareykanka ugu soo iibsan rabtay lacag dhan $735 milyan una dhiganta €520 milyan. qiimayntii dalalka ugu awoodda badan caalamka uu sanadkan 2021 ka sameeyay wargeyska ka faallooda awoodda ciidamada caalamka ee Global Firepower, waxay Israa'iil ka gashay kaalinta 20aad. diiwaankana wuxuu ka kooban yahay 140 waddan. tirada guud ee shacabka Israa'iil waxaa wargeysku ku qiyaasay 3,643,700 oo qof, kuwaasoo 3,024,271 ka mid ah ay diyaar u noqon karaan haddii looga baahdo adeega militariga. waxaa kale oo xusid mudan in sharciga Israa'iil uu dadka Yahuudda ah khasab ugu dhigayo in ay soo maraan ciidamnimada.
militariga Israa'iil guud ahaan waxa uu ka kooban yahay 643,000 oo askari, 170,000 oo ka mid ah waa ciidan shaqeeya hadda, 645,000 waa ciidan kayd ah oo xareysan, 8,000 waa booliiska sida militariga u tababaran. Awoodda cirka tirada guud ee diyaaradaha militariga Israa'iil waa 595 diyaaradood, 241 waa diyaaradaha dagaalka, 23 waa diyaaradaha ay shaqadoodu ku kooban tahay inay weeraro fuliyaan, 15 diyaaradood waxay qaadaan saanada, 154 diyaaradood waxaa lagu fuliyey tababarada, 23 waxay fuliyaan howlgallada qaaska ah, 128 ka mid ah waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikabtarka, 48 ka mid ah waxay u qoondaysan yihiin fulinta weerarada, 11 waa diyaaradaha waaweyn ee kuwa kala jida. Awoodda dhulka militariga Israa'iil waxay haystaan 1,650 taangi, 7,500 oo gawaarida gaashaaman ah, 650 madaafiicda iskood isu rida, 300 oo madaafiicda goobta ah, iyo 100 fadhi oo qalabka gantalada lagu tuuro ah. Dhinaca badda, Israa'iil waxay haysataa 65 markab oo isugu jira kuwa waaweyn ee diyaaradaha qaada, kuwa biyaha hoostooda quusa, iyo kuwa kormeerka xeebaha sameeya. Miisaaniyadda ku buuxda gaashaandhigga Israa'iil waa lacag gaaraysa 16 trilyan 600 oo milyan oo dollar. Awoodda iyo hubka Xamaas ma jiro liis Falastiin ay ku jirto oo qiyaasaya awoodda militari ee Falastiiniyiinta, laakiin cududda la dagaalamaysa Israa'iil waa ururka Xamaas oo fariisinkiisa ugu weyn uu yahay marinka Gaza. Xamaas iyo Islaamic Jihad inkastoo ay yihiin kuwa ka awood yar Israa'iil, haddana waxay haystaan hub ku filan inay ku weeraraan Israa'iil. Durbaba waxay isku dayeen isticmaalka xeelado kala duwan. Qalabka difaaca Israa'iil wuxuu dhulka soo dhigay daroon ay suuragal tahay inay hubaysanay, taasoo isku dayaysay in ay Gaza ugu tallawdo dhinaca Israa'iil, laakiin hubkaas aad uga awoodda badan ugana saamaynta badan ee ay Falastiiniyiintu haystaan waa madaafiicda goobaha dagaalka loo adeegsado oo noocyo kala duwan leh. Waxaa kuwaas lagu tuuri karaa dhulka iyadoo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha ciidamada isla dhulka. Qaar ka mid ah gantaaladaas iyo kuwa kale oo lagu riday qalabka lidka taangiyada oo loo adeegsaday maalmihii la soo dhaafay ayaa la aaminsan yahay in Falastiiniyiinta loo gudbiyey iyadoo loo sii marinayo dhuumo dhulka hoostiisa ah oo ka hoos yaala gacanka Sinai ee dalka Masar. hase yeeshee Xamaas iyo Islaamic Jihad ayaa gudaha Gaza ku samaysta hubka iyagoo ku sameeya warshado la qariyay oo ku yaala meelo ka mid ah marinka Gaza laftiisa. Khubaro reer Israa'iil ah kuwa caalami ah waxay rumaysan yihiin in saynisyahano u dhashay Iiraan ay gacan weyn ka geystaan dhismaha warshadaha lagu sameeyo hubka, laakiin Xamaas waxay sidoo kale adeegsataa gantaalo nooca ridada dheer ah sida M75 oo gaari kara ilaa 75 kilomitir, Fajar oo gaaraya ilaa 100 kilomitir, R-160 oo gaaraya ilaa 120 kilomitir, iyo xoogaa M320 ah oo gaaraya masaafo dhan 200 kilomitir. Sidaas daraaddeed way caddahay in Xamaas ay haysato hub lagu garaaci karo magaalooyinka Qudus iyo Tel Aviv labadaba, iyo in ay halis gelin karaan guud ahaan marinta xeebta oo ay degan yihiin tirada ugu badan ee shacabka reer Israa'iil ayna ku yaalaan kaabayaasha ugu muhiimsan. Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa heshiis xabad joojin ah ka gaaray dagaalkii Gaza ka bilowday 12 maalmood ee uu ka dhashay khasaare naf iyo maalba. Golaha wasiirada Israa'iil waxay xaqiijiyeen in heshiis xabad joojin ah ay la gaareen maleeshiyaadka Falastiiniyiinta si dagaalka 10 maalmood socday loo joojiyo. Sarkaal ka tirsan ururka Xamaas oo wakaaladda wararka ee B u waramay waxa uu sheegay xabad joojinta ay Israa'iil ku dhawaaqday ay ka dhigan tahay guul shacabka Falastiin u soo hooyatay iyo guul darro soo gaardhay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Warbaahinta Falastiiniyiintana waxay sheegeen in ay diyaaradaha Israa'iil duqeymo hor leh ka bilaabeen marinka Gaza.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu isna xaqiijiyay dagaalka Israa'iil Gaza in xabad joojin laga gaaray, wuxuuna mar kale sheegay Mareykanka inuu Israa'iil taageerayo si ay isaga difaacdo kooxaha argagixisada ah. Waa sida hadalku u dhigay. Inta uu dagaalku socday, khasaaraha ka dhashay tirikoob lagu sameeyay waxaa lagu ogaaday ugu yaraan 232 Falastiiniyiin ah oo ay 65 yihiin caruur in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday, halka Israa'iiliyiintana dagaalkaas ay ugu dhinteen 12 qof oo 2 ka mid ah yihiin caruur. 24 saac la soo dhaafay oo kaliya 12 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay oo ay 7 ka mid ah yihiin dad rayid ah, iyadoo ay dhaawacmeen 190 qof oo kale. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxay sheegtay marinka Gaza inay ka qaxeen 91,000 oo qof. Wasaaradda guryeynta ee Gaza waxay sheegtay 16,800 oo guri inuu dagaalkaas waxyeello u geystay, 1,800 oo gurina ay noqdeen kuwa aan laga noolaan karin, 1,000 gurina ay gebi ahaanba burbureen. Xafiiska warbaahinta Xamaas wuxuu sheegay duqeymaha diyaaradaha Israa'iil inay geysteen khasaare lagu qiyaasay $40 milyan. Militariga Israa'iil waxay sheegeen 4,300 oo gantaal in marinka Gaza loogu soo riday. Israa'iil 90% gantaaladaasina ay kaga hortageen nidaamka gantaalaha loogu hortago ee Iron Dome. Ururka wax soo saarka warshadaha Israa'iil wuxuu sheegay 3 maalmood ee dagaalka ugu horeeyay saameynta dhaqaale ee dagaalka u geystay in lagu qiyaaso ilaa $166 milyan. intaas aynu ku soo afmeerina markaad kala socoteen Soomaaliya TV. inta markan war ladan kulmi doono waxaa idinka teginaa sida ay nabadgelyo.